وطبعاً ماي سنة 2026 كل wanaagsan khiyaarta nala socotay meel kasta waa dunida ka joogtaan halkani waa barnaamijka la fagurka wararka caalamka iyo waliba taxliilinta diblomaasiyadda ee aad kala socotaan channelka Cabdulcasiis Barrow qodobada aan idinkugu hayo tabintana waxa ka mid noqon doona dowladda Iran ayaa si ay uga badbaado weerar oo ku qaadi karaya Mareykanka waxa la hordhigay 5 shuruud oo waaweyn taas oo Trump xaqiisa ka imaaday Iran ay marxaladda ku adkaato inay ka jawaabtana waa adag tahay dowladda Pakistan ayaa markii ugu horeysay laga soo xigtay inay ku dhawaaqayso in uu burbur u saaran yahay qarka wada xaajoodkii nabadda ee u dhaxeeyay dowladda Mareykanka iyo sidoo kale Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iran la taliyaha sare ee Ayatullaahiga wadanka Iran ayaa waxa uu yiri madaxweynaha dalka Mareykanka waa damiin aan waxba ka garanayn istiraatiijiyadda talaabo kasta oo loo soo qaado dhankoodana waxa ay noqon doontaa mid dunidu ay arki doonto waxa ka yimaada ciidamada ilaalada kacaanka Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iran waxa ay ku dhawaaqeen inay u diyaarsan yihiin in ay jawaab adag ka bixiyaan haddii Mareykanka iyo waliba dhinacyada ka soo horjeeda ay isku dayaan in ay weerar ku qaadaan Ra'iisul Wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu waxa uu la kulmayaa golaha kooban ee wasiirada si looga arinsado suurtagalnimada weerar lagu qaadi karayo wadanka Iran gobolka bariga dhexe waxa uu taagan yahay isgoys aan la ogeyn dhinaca uu u jahaysan doono arrimahaas ayaan ku faaqadayaa barnaamijkan khiyaarta ay nala socotay soo dhawaada kuna soo biira YouTube-ka oo subscribe saara haddii aad Facebook nagala socotana nagu soo biir channelka kale Barrow Show-na oo aad naga heli kartaan oo mahadsantiin madaxweynaha dalka Mareykanka Trump waxa uu qaadan layahay go'aanka militariga ee ka dhanka dowladda Iran waxaana laga baqayaa xaaladda colaadu inay noqoto mid daba dheeraata haddii Washington ay dagaal dhammaystiran la gasho gudaha wadanka Iran waxyaabaha ugu badan oo ay ka fakarayaan waxaa ka mid ah in ciidamo la geliyo magaalada Isfahan oo ay ku taala xarunta nuclear-ka ee wadankaasi Iran isla markaana la tuhmayo inta ugu badan uranium-ka la bacrimiyay inay halkaasi yaalaan hasaatee ciidamada dalka Iran ayaa dhowr jeer oo hore ku dhawaaqay in Mareykanku aanu tahli karin in wax ciidan ah oo dhulka uu soo galin karo halkaasi isla markaana ay ku adkaan karayso xiisadda iyadoo taasi ay taagan tahay madaxweyne Trump ayaa waxa uu leeyahay si looga badbaado dagaal dhammaystiran oo gobolka bariga dhexe galgala dowladda Iran waa inay aqbasho 5 qodob oo muhiim ah waxaana tani ay u muuqataa haba yaraatee qodobadan inaysan qaadan karin dowladda Iran sida qubarada wax taxliiliya ee la fagura diblomaasiyadda caalamku ay tilmaamayaan wakaalada wararka Faris ayaa soo xigatay ila xog ogaala oo sheegaya in Mareykanka uu jawaabtiisa ku aadan soo jeedinta Iran uu ku xiray 5 shuruudood oo waaweyn sida ay wararku sheegayaan shuruudaha Washington waxa ka mid ah in aan wax magdhow la siin Iran isla markaana Tehran lagu qasbo inay wareejiso kaydkeeda uranium-ka ee la hodmiyay Mareykanka ayaa sidoo kale ka dalbaday Iran in loo ogolaado in ay sii wado wada hadalka hal xarun oo nuclear ah oo kaliya halka xarumaha kale ama awoodaha dheeraadka ah ee dalkaasi la xadidayo wararku waxay intaasi ku darayaan in Mareykanku uu ku adkeysanayo xabad joojin dagaalka ka socda dhammaan jihooyinka ay ku xiran baaliri wada hadallada rasmiga ah oo la bilaabi doono marka arrimahaasi la anbaqaado dhinaca kale Washington ma aysan aqbalin codsiga ay soo jeedisay dowladda Iran oo ah in la sii daayo 25% lacagaha Iran dibadda looga xayiray horumarkan ayaa ku soo aadaya baaliri dadaalada diblomaasiyadeed oo xoogan oo lagu doonayo in lagu adkeeyo xiisadda gobolka ee sii xoogaysanaysa علي أكبر ولايتي والطليها سري هجاميها وطنك إيران مجتبى علي خامنئي waxa uu leeyahay marka la eego hab dhaqanka ficilada hadallada iyo yoolasha uu damacsan yahay madaxweynaha dalka Mareykanka waa damiin istiraatiijiyadeed oo aan waxba ka garanayn qaab dhismeedka dawladaha fahanka iyo waliba xeeladaha dagaalka
waxaana uu yiri wadankiisa inuu ku filan yahay dagaal kasta oo lagu soo qaado oo ujeedadu ay tahay in wadankaasi lagu dhibaateeyo. la taliyaha hogaamiyaha sare ee wadanka Iran Cali Akbar Wilayati ayaa sheegay in hanjabaadaha uu jeedinayo madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ay yihiin damiinimo istiraatiiji ah si uu sii horiyo buu yiri isla markaana ay sii horanayso Israel go'aamadana isagu aanay ka imaanayn. Wilayati waxa uu carabka ku adkeeyay in aysan gali doonin dabinkaasi isagoo ka digay iska hor imaad ay Mareykanka iyo Israel ku marayaan gobolka una yeelan doonaan qarashaad culus iyo waliba cawaaqib la saadaalin karin oo ka dhalanaya baaliyay dagaalka haddii uu sii xoogaysto. isagoo hadlaya waxa uu yiri ku dhacista dabinkan oo lala gala Israel waxa ay leedahay qiimo aad u sareeya taas oo Mareykanku aanay fahmi karin isla markaana ay ku bixin doonaan qarashaad badan. sidoo kale waxa uu sheegay in haddii xiisadu ay kororto Washington ay dhawaan ku qasbanaan karto in ay dib u raadiso kalsoonidii iyo sumcaddii ay ku lahayd Bariga Dhexe taas oo ku tilmaamay mid sii weeqmaysa. hadalladan ayaa imaanaya xilli ay cirka isku shareerayaan erayada labada dhinac iyo doodaha ay iswadaarsanayaan oo ka dhigan in cabsi weyn laga qabo xiisada gobolka mar kale inay soo laabato. dowladda Pakistan waxa ay aad uga walaacsan tahay in uu burburo heshiiska wada xaajoodka iyo wada hadallada la doonayo in lagu eebiyo colaadda gobolka Bariga Dhexe ee ka socda magaalada Islamabad. inkastoo wada hadalladu uu ku jiro waxa loo yaqaano hakad hadda waxa muuqanaya in dhinacyadu wali ay ismari laayeen isla markaana ay ku dhowdahay rasaasta qoriga afkiisa inay ka baxdo oo dib gobolka Bariga Dhexe uu dagaal u galo. Islamabad oo arintaasi doonaysa inay badbaadiso waxa ay labada dhinac la leedahay kulamo degdeg ah oo la doonayo in xiisada lagu qaboojiyo isla markaana lagu keenay isbedel dhameystiran. wargeyska Pakistan ee Dawn ayaa soo xigtay ila diblomaasiyadeed oo ku sugan Islamabad kaas oo shaaciyay baa la yiri sababaha ka dambeeya booqashada aan horey loo soo shaacin ee wasiirka amuraha gudaha dalka Pakistan uu ku tagay magaalada Tehran ee caasimadda wadanka Iran. sida wararku ay sheegayaan booqashada wasiirka ayaa qayb ka ah dadaalada diblomaasiyadeed ee joogtada ah Pakistan ay ku doonayso inay dib ugu soo noolayso wada xaajoodka nololeed ee hakadka galay ee u dhaxeeya Mareykanka iyo Iran oo iminka u muuqanaya in uu ka sii dhacayo gabadheer. ila wareegyadu waxay sheegayaan in safarkan degdega ah ee ujeedkiisu yahay in looga hortago burbur buuxa oo ku yimaada wada hadallada kadib markii si weyn ay u yaraadeen dardargelinta ka dhalatay wareegyadii hore ee wada xaajoodka ee lagu qabtay magaalada caasimadda u ah wadanka Pakistan ee Islamabad. waxaa la filayaa wasiirka amuraha gudaha ee wadanka Pakistan Muhsin Naqvi in uu la kulmo baaliri inta uu ku sugan yahay Tehran mas'uuliyiin kala duwan isla markaana Pakistan waxa ay doonaysaa in colaadda gobolkaasi ka aloosan iminka loo helo xal degdeg ah isla markaana wada xaajoodyada diblomaasiga ee ka shaqeynaysa aanay noqon kuwa fashilmay. xilli dowladda Iran ay wajahayso go'doon siyaasadeed ee Mareykanka uu ku hayo mid diblomaasiyadeed iyo mid dhaqaale haddana dowladda Shiinaha ayaa noqotay tan ugu weyn ee istiraatiijiyad ahaan wadankaasi ilooyin uu ku badbaado u samaysay. dowladda Tehran ayaa u arkaysa xiriirka Beijing oo la sii adkeeyo inuu yahay kan ugu muhiimsan ee looga badbaadi karayo culeysyada ka imaanaya Mareykanka. Shiinuhu waa dowladda ugu weyn ee ku tiirsan shidaalka ka soo baxa wadanka Iran ee crude oil-ka loo yaqaano. Iran Mohammed Baqir Qalibaf ayaa loo magacaabay inuu si gaar ah uga shaqeeyo xiriirka wadamada Shiinaha iyo dowladdaasi Iran. tan oo ka dhigan dowladda Iran inay qaadayso tallaabo kale oo istiraatiiji ah oo Mareykanka looga sii fogaanayo isla markaana soo dadejin karta Washington inay qaado tallaabo military maadaama ay waxa ugu weyn ay doonayso ay tahay dowladda Tehran in dhinaca galbeedka loo soo dumo.
warbaahinta Iiraan ayaa xadii shaacisay gudoomiyaha baarlamaanka Iiraan iyo madaxa wada xaajoodka Iiraan u qaabilsan arrimaha Mareykanka Maxamed Baaqir loo magacaabay wakiilka gaarka ah ee Jamhuuriyadda Islaamiga Iiraan u qaabilsan arrimaha Shiinaha sida ay baahisay wakaalada wararka ee Tasniim oo soo xiganaysa ila xog ogaala Qalibaaf ayaa loo igmaday kormeerka iyo wada xoojinta baaliri xiriirka istiraatiijiga ee u dhaxeeya Tehran iyo Beijing warbaahinta kale oo Iiraan ayaa sidoo kale xaqiijisay wararkan iyagoo tilmaamaya in magacaabistan ay ka turjumayso muhiimadda sii kordhaysa ee Shiinaha uu leeyahay siyaasadda dibadda iyo waliba istiraatiijiyadda dhaqaale ee Iiraan magacaabistan ayaa sidoo kale imaanaysa xilli dadaalo xoogan ay ka soconayaan gobolka iyadoo Mareykankana uu Shiinaha ka codsaday arrimaha Iiraan inuu soo farageliyo si colaadda loo eebyo ugu dambeyntiina warbaahinta nidaamka Israel sida wargeyska Idaacada Xaranood ayaa ku waramaya in ra'iisul wasaaraha nidaamkaasi Benjamin Netanyahu la kulmayo wasiirada foolaadka ah ee dagaalka loo yaqaano ee nidaamkaasi si ay uga arrinsadaan suurtagalnimada dagaal ka bilaaban karaya gobolka Bariga Dhexe golaha amniga ee wasiirada ama golaha dagaalka ee wasiirada sidii loo dhigaba waxa ay ka dhigan yihiin inay qaadan karaan go'aamo masiiriya oo suuragal ka dhigi karaya dagaalkaasi in dib loogu laabto Israel ayaa Mareykanka ku cadaadinaysa sidii dagaalka gobolka Bariga Dhexe dib loogu qarxi lahaa isla markaana uraniumka dawladda Iiraan gacanta loogu dhigi lahaa loona burburin lahaa awoodaheeda gantaalaha iyo diyaaradaha iswada ee qaatigu ay ka istaageen wadamadaasi gobolka Qaliishka iyo Bariga Dhexe khiyaarta ay nala socotay tabinta qaybtan ee faaqidaada wararka caalamka lafagurka iyo taxliilinta diblomaasiyadda qaybtan intaan ayaan ku eebiyaa si aad u heshaan macluumaad ku saabsan dhacdooyinka waaweyn ee ka taagan dunida iyo gobolka Bariga Dhexe intaan ayaan ku hakanaya waa Cabdicasiis Barrow idile soo dhawaada